kulan wanaagsan idin ahaantiin baddaawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo weliba barnaamijkeeni ciyaaraha oo saacadahan oo kale aad ka dheehataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland habeenkan caawa daawadayaal sida aad barbarkayga mid ku arkaysaan waxa barnaamijka igu martiya Cabdiwali Maxamed Ismaaciil oo loo yaqaan Waro Cabdiwali waxa uu ka tirsan yahay kooxda Duufaan isla markaasna waxa uu yahay kabtanka kooxdaasi Duufaan kooxdan Duufaan ayaa ah koox heerka koowaad oo ka dhisan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa kooxdan ayaa hadaba waxa hoos yimaada 21 kooxood oo ah heerka labaad ama loo yaqaan Zero Bida Cabdiwali ku soo dhawow barnaamijka ciyaaraha iyo waliba telefishinka qarankood habeenkan caawa noogu martay si fiican baan u soo dhawaayay Cabdiwali hadii bal aan adiga shakhsi ahaan wax ka weydiiyay Cabdiwali ahaan goormuu xageebu talo ku dhashay xageebu kubadiisii ugu soo horeysay ka bilaabay yaa kugu dhiirigeliyay inaad kubadda cagta aad ciyaarto bal waxaan naga siisaa warbixin kooban background-kaaga ama taariikhdaadii hore bismillaahir rahmaanir rahiim ruuxantii kubadda cagta waxaan ku soo beeray sanadii 2004 waxaan ka bilaabay kooxda aan joogo ee Duufaan xilligaas oo malaynayo inay ahayd kooxdii heerka saddexaad ay kamid ahayd kooxaha heerka saddexaad ee xaafadda ka dhisan kubadda kulli macallimiin badan way soo martay laakiin macallinkii ugu horeeyay kubadda cagta ugu barbaariyay Mukhtaar Cabdi Xaashwe loo oran jiray ninka Jarmalku jooga oo malaynaya macallinkaas waa macallinkii dhiirigeliyay aniga kubaddayda niyadiisii ee jeclaa inaan mar kasta kooxdu tababaraahay aan kaaga ciyaaro taariikhdayda yar haddaan ka warramo sanadii aan sheegay ee kubadda cagta aan soo biray 2004 baheed sanadda waxaan ciyaaray isla kooxda Duufaan oo heerka saddexaad kooxdaas waxaan joogay ilaa hadda oo taariikhdu tahay 2014 waxaan la soo qaatay marxalado badan oo ilaa heer saddexaad heer labaad iyo imkaan ku suganahay heerka koowaad haddaan taariikhdayda ka sheekeeyo aan waxaan haynin u kabtana kooxda kubadda cagta ee heer koowaad ee Duufaan waxaan ka ciyaaray positionka number 5ka ama 4ka labadaas oo labadaba aan ka dheelo waxaan kala aan taariikhdayda ku jirta inaan kooxo kale u saftay iyadana oo loo oran jiray Senegal oo kale oo aan sanado 2005 aan kooxda ka tagay ciyaaray koox kale iyadana loo oran jiray UFO iyadoo ku dheedo aan saftay marka kooxda imkaan ku bilaabay ayaan imkaan isleeyahay insha Allah ku dhameey kubadda cagta marka waxaad sheegtay inaad kooxdan Duufaan ee heerka koowaad aad ka tirsan tahay aad kubadda ku bilowday waqtigii 2005 inaad sheegtay inaad kooxda ka tagtay sababihii kuugu kalifay maxaa ahaayeen kooxdan Duufaan ka hor kooxaad soo ciyaartay oo yaraanta koox yar oo loo ciyaaro oo xaafadaha ka dhisan baa jira miyaanay jirin mise waxaad leedahay kooxdan baan ku soo bilaabay ilaa heerkaana aan ku soo gaaray way jiraan kulli kooxaas laakiin bariga deemka kubadda way isbedesho waxda ka sacaruur inta la leego koox loo magac leh anu bariga kubadda ciyaari jirnay aanan heerka saddexaad ama Duufaan ku soo biirin koox weyn ciyaari jiray laakiin kooxaas waxaan urursiyo khamiistii jimco kala dii shashanta boqol baan ciyaari jirnay laakiin koox magac leh oo loo oran karo koox Ibrahim soo ciyaar ma jirin wax loo oran karo koox ciyaar xaafad loo oran jiray ayaan soo ciyaar sababaha ugu kalifayna kooxda ka tago waxa ahayd macallinkii kooxda oo isagu waqtigan sheegay kooxda ka tagay koox kale oo fil oran jiray iyo Senegal labadaba u tagay labadii baan la soo qaatay isla markuu kooxda ku soo noqday 2007 ayaan kooxdii dib ugu soo noqday iyadoo heerka labaad kooxaad u ciyaaraysay markii aad kooxdan ka tirsanayd aad u tagtay waqti baad la qaadatay muddo la joogtay kooxahaas iyo kooxdan aad maanta kabtanka u tahay keeba adiga dareen gaar ah kugu lahaa intii kooxaad ka tirsanayd wax koobabood la ciyaartay ma jireen kooxaarta dareenka gaarka ay waa kooxiyaan u tagay kulli isku dabeecad ma ahayn oo kooxda Duufaan waxay ugu soo celiyay markii hore aan uga tagay ay qabtaa jacaylka awgeed baan qabay dhaqankii ay ku dhaqmi jirtay oo aan kooxaha kale ku dhaqmi jiray awgeed ayay u kalifeen ku soo noqon haddaan yar taabto koobka aad ka dhawaajisayna kullu way badan oo intaan heerka labaad ahaan wax ku guuleysanay 19 koob kooxaha kale intaad u ciyaaraysay Duufaan intii aan soo galin wax koobaba ma la soo qaadatay ay lama qaadin hal final baan u ciyaaray halkii final kooxdii Florida jiray baheed waana laga qaaday intii aad kooxdan Duufaan ka tirsanayd kooxdiinan Duufaan intee koob bay qaadatay
horta runtii heerka saddexaad markaan ahay 8 koob baan qaadnay oo gelinka hore ciyaari jirnay aan ku soo birnay inaan marka dambana ciyaaraha hore ciyaarno markii aan heerka labada soo gudubnay waxaan qaadnay sanadkii dhawaajiyay 19 koob heerka koobaad aan ka taaganahayna waxaan qaadnay 3 koob marka koobabkaasi ma kuwa degmooyinku ay dhigaan baahayd ma kuwa ay wasaaradda ciyaaruhu dhigtay ahay koobabkaasi halkay ka yimid jireen koobabkaasi waxay isku jireen dhowr koob oo qaar ay ahaayeen munaasabado maalmaha qaar la xuso qaar ay ahaayeen koobkii rabadaanta qaar ay ahaayeen koob wareego xaafadaha ay wasaaraddu bilaabi jirto kooxaha heerka labaad xaafadda Axmed oo kale dhowr koob bay jireen noocaas qaadnay 2 koob rabadaan baa jiray munaasabado badan oo ay madaxdu dhigto maalmo lagu cayimi jiro kala aan qaadnay bay jiray kooxdiinan duufaan sidaad sheegtay waa koox intay kasoo bilowday hoosta ilaa halka sare soo gaadhay waxaana sheegteen in intaasoo koob aad ku guuleysateen kooxdiinan ma koox dhalinyaro isku tagto idinku is abaabulayba mise cid baa idin maalgelaysa oo idin fangaraysa oo ilaa heerkan idin soo gaarsiisay runtii kooxda horta markii hore iyada isfangareyn jirtay ilaa nabarta waxay ku taagan tahay waa iyada jeebkeeda ilaa ninku wax meelo anagu heer koobaad aan ku meelaysan ma jirto laakiin rag badan oo madaxa gacan iyaguna inay geystay ugu horeeyo janaka ciidanka booliska General Cabdilaahi Fadil Imaan oo ku xigo xildhibaan Deeq Ducaal Cismaan oo ku xigo xildhibaan Macna oo ku xigo xogayaa gobolka Xamse Ciise rag noocaas oo madax oo xaafadda ka tirsan ayaa gurnada sportska markastana la garab taagnaa laakiin majority ahaan halkan waxaan ku soo galnay jeebka iyagu hadan qabo dhalinyaro isku tagtun baad markaa halkan kusoo gaadheen waxaad sheegtay inaad maxaa la yidhahdaaye 21 kooxood oo Serbia ay kooxdiinan duufaan hoos timaado oo idinku manage garaysaan amaba maamushaan sidee ay ku suurta gashay inaad kooxaha isku soo daburidaan iyadoona cidina dhaqaalihii idinka caawinay aad meel iskugu keentaan dabadeedna idinku aad maamushaan sidee bay ku dhacday horta runtii gacmooda jirbay wax ku qabtay wax ku gooyeen baa leeyahay kooxahan maalmihii hore aanan kooxan koox noqon waxay ahaayeen kooxo sida xaafadaha aragtay rabshad iyo islayn iyo wax wada kadib maadaama aan ka baxnaana ku heerkii labaad aan ugu gudubnay heerkii koobaad waxaan aragnay in mas'uuliyad culus naga saarantay kooxaha heerka labaad oo waayda xaafad yihiin ay dhalinyarada yihiin ay saaxiibada yihiin oo aan la kala maarmi marka waxaan ugu kaliftay kooxii horta koow inaan walaalayno laba de kulli kooxu waa iska wada de kooxaan meel ku tiirsanayn marka intaan iyaga soo ururnay aan koox kasta soo dhisnay ayaan iyaga ku dhowd contribution ka warna ay wax wada qabsadaan haday munaasabad tahay haday tahay de koox la caawinay haday tahay kooban qabano garoonka ugu dhiisay wasaaradda ciyaaraha xiriir baan leenahay koobka way naga caawisa madaxda kale shirkadaha aan karo kale way naga caawisa iyaduna koobka sida awgeed anaguna waxaan u soo qaban karnaa meelaha uga soo qaban karnaa oo soo qabanay wax madaxa aanu keeni karno iyaga ku dhowduna urur isweelayeen waxba wada qabsanayaan iminkana takeeliyatan meesha ka saarnaa waxa weeye in inamadii heerka labaad ee de fursada taagnaan u baneeyna maanta koow ay biwadi bartaan laba ay qabyaaladii bartaan saddexna ay tahriibtii aafadii khatar tahay ay bartaan oo daadowta mustaqbalkan beddelay heerkan koobaad istaagaya annagu barrig baan maanta beddelnaa oran karaa raggii maanta annaga markaa nabadilla waxaan yar jeclaysanay annagu ragga beddelayeen ay noqdaan rag dhaqankii haysta oo isku dubareednay oo walaala markaa si awgeed baan u kaliftay inaan kooxaas ku soo ururno 21 kooxood aad bay u badan yihiin marka dhan laga eego kooxdiiba intaasoo 20 ay ciyaartooyba ku jira koobab ma idinkaa u dhigaa ma wasaaradaad kala kaashataan in koobab loo dhigo mise intaad kooxaan aad maamuleyseenba wax koobaba umaydu qabanee kulamuunbay ciyaaraya saaxiibtinima may runtii horta garoonka koob kama istaagaan koobkaasna waxay isku jiraan dhowr koob kuwa aan kuu sheegay waa kuwa munaasabadaha maalmaha aanu qabano ee maalin hiblaayo oo kale xagga wasaaradda waan kala kaashanaa wasaaraduna way noo qabatay iyaguna kooxaha ku dhowdaan u qabano koob kale iyaguna jira oo kooxaha aanu u qabano oo iyaga ku dhowda intaan ka soo ururno gunooyinka aanu koobka iyo garsoorka iyo garoonka quruxdiisa iyo miidiyaha aanu iyaga ku dhowda iska kaashano oo wixii aanu soo ururnay gunahay aanu iyaga dib ugu farasharayn koob aanu anagu maalgelino oo 8 kooxood markasta ugu sareeya aanu koob bilaash aanu qabno diriisadoodii anagu kunadayda ka jarno ayay iduna jira oo 3 bilood 2 bilood mar aanu qabano koobabka halkeed ku dhigtaana waxa ku dhignaa Hargeysa stadium baan ugu wada qabanaa guddiga
koobabka aad u qabataan markaa kooxdii guulaysata dee koobkiiba iyadoo hantiyaysaa kooxdii kale soo hadhay maxaad ugu tala gashaan haddii khilaaf dhex yimaado dhexdoodii kolley marka la ciyaarayo isku dhacbaa imanaya meeshii maxaad ku xalisaan ma qodobaa jira sharciyaa jira u yaala kooxdihiinan oo qabanaya qofkii khaldama mise si saaxiibtinimo aad u xalisaan arrimaha markaasi koobabka dhex imanaya horta runtii taa khilaafaadku way dhicaysaa kubadda cagta gabi ahaanteedu way iska yar wadata khilaaf ama xanaaqad ay ku jirtaa taa waanu kasii gaashaamanay maadaama iskugu keenna 20 kooxood oo kooxda ugu yaraa 20 qof ka kooban tahay waxaanu kasii baaraandegnay waxaan u sameynay warqado sharciya oo tababaro kasta iyo kabtan kastaba suuliya saxiix laga qaaday wixii waraaqahaas iyo buugagaan kala qoranay ku xadgudbaya ama dhaafsiisan inaan kooxaha 20ka lagu xukumin xukunka warqadaha noogu jiray sharciyada aan dhiganayna inaanay cidigeys marin markaas si awgeed waxaan ku xukunaa buugaga ama warqadaha aan soo daawacanay ee tababarayaasha iyo kabtan kasta suuliya saxiix laga qaaday marka cidii ka hor timaada sharciga ma laga yaabaa inaad kooxaha ka eridaan coachku hadduu aad aragtaan oo kale macalinka kooxdaasi wataa inuu sharciyadiini ka hor imanayo maxaad ku samaysaan ma kooxdaad ka eridaan haddii aad isku daydaan inaad ka eridaan miyaanay kooxdii dhammaanteed wada raacayn oo halkaasina fadqalala ka imanayn may runtii kulli sharciyadu way u yaalaan tababarnimaduna way ku jiraan tababaraha ama dee isagu yar xumaada ama kooxdiisa ay xumaato way dhacdaa tababarayaasha waa la iswada weydaariyaa oo maanta tababarihii kooxdan haystay berito waxa laga yaabaa kooxdan dhigeeda inuu qabsado oo annaga qudheeda ayaa maamul u saarnay ay ka kow yihiin kabtanada kooxo oo dhan 2 iyo 3 ay ka yihiin gudoomiyaha guud ee kooxda kubadda cagta ee kooxda Dufaan iyo tababaraha kooxda labadaas oo gudoomiyaha iyo kabtanadu ka wada tashadaan haddii ciyaaryahan noqoto haddii tababaro noqoto haddii cid kale noqoto qallaysi gelinaysa shuruudaha noo yaala iyo xiriirka noo yaala iyo dee waxaan isku afkaranay waxaan isku daynaa haddii kooxdaasi ama ciyaaryahankaasi ganax leeyeen ganax la saaro haddii uu eri leeyahay in la eriyo tababaraha ku dhiisaysto wax lagu qabto xashaasha ama laga socdo waxa loo eegaa in koox kale lagu bedelaamo tababar kale loo keeno kooxdiisa galeeyay 20 kooxood ee maamushaan ma isku daydeen inaad kala kaashataan waxa jira ganacsataa jirta hay'adaha jira in ay idinka caawiyaan oo ay ku ciyaaraan magacyada hay'adahaasi ama ganacsatadaasi oo idinka idii hoos imaadaan oo hadhow toolada ururkiin isugu noqdo urur heer wanaagsan ee kubadda ka gaadho ay hoos imanayaan badee koox ku ciyaaraysa magac shirkad weyn sidata ma cid weli ma u tagteen oo ma weydiisateen in kooxahaasi dee la idin kala caawiyo ma runtii ilaalan cid naga caawisa ama cid aanu u tagnay ma jirtaan maxaad markaa ugu tagi weydeen oo kale ma idinkuunbaa goostay in idinku dhexdiinu sidaas ugu duubnaataan oo cid kale aydaan u baahan mise maxaa la yidhahdaaye idinkaan u dhaqaaqinba inaad dhanka in wax idinka caawiso ma runtii horta qorshaha waa lagu jiray laakiin weli aanana kaan u dhaqaaqin oo kooxii waana u yar bislaan hawshii guddida loo saaray kabtanada iyo macalinka iyo gudoomiyaha kumidina kulli qorshayaal noocaas qorshe way u jiraan laakiin weli aanan wax dhaqaaqa oo aanu sameynay ama aan wax leeyahay ma jirto laakiin qorshe way nagu jirtaa inaanu hay'adaha iyo shirkadaha waaweyn aanu nimaal geliyo kooxaha yar dimaal geliya aan hor dhigno warqado horta idinka koox ahaan goormaad heerkan seero eeda ku soo biirteen yaa idinka caawiyay inaad heerkan seero eeda timaadaan runtii waxaan ku soo biirnay heerkan seero eeda sanadii 2003 bishii 2 waxaana si gaar nooga caawiyay agaasimi hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mustafa Qodax iyo wasiirka hadda jooga Siciid Reegel janaka ciidanka isagu dhis kuma maqneen marka sanadka 2013 waxa la oran karaa waa sanadkii ugu badnaay tahriibku ku dhacay Hargeysa gaar ahaan Hargeysa marka kooxii qeyrkii ahaa ee dhigayga ahaa heerka labaad meel safanay waxaan u maleynayaa kiligii inaan meel cad ka soo istaagay sababta awgeed iyo dadkii xaafadda dadkii waaweynaa siyaasiyiinta xaafadda oo la kaashatay wasaaradda ciyaaraha ayaa noo sahlay inaan heerka koowaad ku biirno iyo dhalinyaradii dee caasimada Hargeysa oo halka wada marayaan arkay maalin bileydoon baa qaroontay iyo power baa dhacay waxay ugu maqaalaa inaad laba xafiis leedihiin oo aad markaasi ku shiraysan kooxaha kooxood oo aad halkii aad ku shirayseen go'aamada iyo kala dambeyntii wax walba
ay ku suurtagelayeen ay toode haddaydan xafiisyadaasi haysan aanay idii suurto gasheen in waxaasoo kooxi isku yimaadaan yaa idinka caawiya yaa idi fangareeya wallaahi runtii cid naga caawisa ma jirto waxaan quraati aan xafiisyadaas iyo howlahaygaanu ku dabirnaa waxaan oran karnaa dhalinyaro isku tagtay oo tashatay baan nahnay wix allaale wixii karaankoodana aan la baqayn cid allaale cid naga gacan qabatay maanta oo aan oran karo ama xafiisyada ama alaabta yaala ama waxbay naga gacan qabteena dhalinyarta 12 kooxood ayaa anaka mooye cid kale aan iska kaashanay ma garanayo marka dhalinyartiinan dee waa dhalinyar xaafadeed koleeyo dee dhalinyar kubadeedna waa tihiin sideebay idinku suurto galashay contributionka aad isku urunaysaan sideebay idinku suurto gashay midda kale contributionkan aad isku urunaysaan ma bilaad iskaga urursaan maxaa la yidhaha ma weekly maalin laad iskaga urursaan sideebaad iskaga urursaan qofkii muxuu ku xukuman yahay inuu bixiyo kaga qayb qaato kolley imika kubaddi sidii hore maaha kooxo loo ruux almoodo jiray inay ka kooban 18 ciyaaryahan 16 ciyaaryahan laakiin kooxaan 12 kooxda ugu yar waa kooxda 16 qof kooxda kalena waa kooxda 30 iyo wixii ka badan ka kooban marka waxay noo saashay tirada ciyaaryahanada baatay contribution khayra la iska waranayo bil inaanu iska warano annagoo macalino ku jirna oo 22 kooxood diwaanad kana 22 kooxood min 100 leena laga qaaday lacagta gaadhayso ma bishii baad ka qaadaan ma toddobaadkii baad ka qaadaan oo dhalinyarta lacagta ka urursaan ما يبشي بيكوها كستبته وبريه دوسو بساته وبرونا حفيز وقارة كوحة يريد بيجرا حفيز ما حفيز أنا كنا وقارة كوحان مرجع حفيز كوحة وقارة يقول تيجي كابتن هذا يوم عالك يجي بدومية كوبا أيه لبسه وريت يا صندوق هاي مرجع waxaa ii sheegtay inaad koobabka ku dhigtaan stadiumka magaalada Hargeysa markaad koobabkaasi ku dhigaysaan stadiumka magaalada Hargeysa yaad kala xidhiidhaan amnigiisa iyo hawlihiisa kulli garoonka waxaan kala xidhiidhnaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha siibahan agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda sportska xagga amniga hadday noqoto taliyaha salka xaafadda iftiin oo isagu markasta tagan dhalinyarada oo nin ku dhex jira oo nin garoonka usoo daawashay tagiya oo nin dhalinyaradii kala wada garanaya ayaa isagana aan dhigayga ka maqnayn oo markasta casar hadday noqoto subax hadday noqoto nin ag taagan wasaaraddu markasta waxay nuu garab joogtaa inay garoonka noo bnayso ay washmaanada nagu balamiso oo si xiriir naga dhaxeeyo aan wada dhaqano si ay ugeed bay nagu saashay inaan koobka ku qabsano koobka u baahanay kooxdiina ka gaashaan ahaan halkeebaad higsanaysaan kulli higsigii uu dheeryahay sanadkan ciyaari goboladu way soo socdaan koobkeedu uu soo socdaa insha Allah kooxdeedu waxaan rajaynayaa inaan horta noqono kuwii horyaalka imka soo socda la bilaabay kooxaha qaada hadda ciyaaraha gobolada noqotaan waxaan doonayaa ciyaaryahanadii hore ee magaca ku lahaa gobolada hore kuwii bedeleen aan sanadkan noqono oo aanu soo tafaxaydina baa qabaan soo abaabulay aan doonno ragga hore magaca ku lahaa ciyaaraha gobolada ninba maalin buu soo baxay maalinteeda toona ka saari doono ciyaaryahanada ugu magaca waaweyn gobolada Maroodi Sheekh iyo gobolada kale dad marii gibiliba ku jiraan inaan intaba raggii ugu magaca dheeraan soo insha Allah bidmay kariim sanadkan waxa ku jiraan kooxda Duufaan kooxdiina Duufaan koox lamid oo iyaduna 12 kooxood si maamusho laga helayo ama de caasimada ama gobolada dalka ma jirto waxana loo oran karaa kooxdiina de waa koox lagu dayin karo bal dhalinyarta ka daawanaysa shaashadaha maxaad u soo jeedin lahayd kulli dhalinyarada loo midun bay ku yar tabligan baan qabaano nin kasta waxaan weegin ninka ka yar ee u baxa haddaan sida ninbanu keeriyaan gacan soo qabanayno waxaan malaynaa inaanay cidi hadhowto heer gaari maanta aanu dhalinyarada shaashada iga daawanaysa waxaan ugu baaq lahaa midowga wax dhaama ma jiraan dalka aynu ku noolahay way midoobeen inta goboleen ka soo kala jeedna waa garanay way is aamineen way walaaloobeen hami bay yeesheen higsiga himilo hamigeen higsiga himiladeen oo ka ilaahay noo dhibay maanta nabad ku naaloono caalamkeena inaga dulasho marka kooxaha waxaan oran lahaa xaafad kasta kooxaha ka koobanta ee heerka labaad hadii ay is urursadaan oo isla xiriiraan oo kooxaha kasta hadna isla xiriiraan oo is urursadaan maanta waxaan u maleynayaa in la gacan qaban karo oo madaxdu waxay ku soo leeyahay noqotay ruuxaantana waxa ku soo badan kubadda cagta waxa la oranaya kooxbilaha halkan ay soo faashideen kooxbilaha halkan arso wada faanseed taasna waa taquraatan ka gaashaamnay aanu diidnay in waraf iyo faashish ay deegaanadii hadhowta mustaqbalkayga bedelay ay qaataan marka dhammaan ciyaaryahanada siiba heerka koobaad waxaan oran lahaa ka berito la ka ciyaaraya booshiishakaagu wax weyn heerka labaad ku jira ama heerka saddexaad oo soo baxaya marka nin kastoo badee
xaafadiina ka bilow markaynu xaafadaha ka wada bilowno ee xaafadaha sidaa maanta aan xaafadda axmed raax uga bilowno looga wada bilaabo dee heer gobol waa la gaadhsiin karaa oo marwada jeex oo dhan waa la wada gaadhsiin karaa kadib waxaa la gaadhsiin karaa heer dal wada gobolada somaliland oo dhan wax lagu daydo ay noqon karaan oo gobol kastaa uu yeesho kooxo isku tegay oo ismaamul maantana waxaan qabaa dee axmed raax ugu dhatay ilaa 12 kooxood baan maamulaha heerka labaad dee caasimaduna intay noqonayso waad garanaysaa waxa qabadkay qabsan karaan dhiirigelinta la siin karayo madaxda u soo istaagaysa dee inta waynu garan karnaa markaa dadkii waxa ka dhiman waxa qabsado cid un bay sugaysaa markaa waxaan odhanaa dhallinyarada heerka koowaad weliba waa dhalinyartayda ka yararaya heerka labaad gacan qabta oo nin kastoo bal xaafadeed kasoo toostay kooxaa ku dhisan ee ka dhisan bal gacantuu ku qabo markaa waxaynu isku keeni karnaa kooxii xaafadahoo dhan oo aynu ku magacaabi karnaa ciyaaryahanada heerka labaad ee gobolka marwada jeex oo dhan baanu gacanta aan ku wada hayna markaa nin kastaaba ninka xaafadooda hadduu ka bilaabo waxaan u malaynayaa inay kubadii cagtu dee beryasta ahayd ay noqon doonto insha allah daawadayaal intaasna waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii ciyaaraha oo habeenkan caawa uu noogu marti ahaa cabdiweli maxamed ismaaciil oo ah kabtanka kooxda duufaan cabdiweli waqtigaana siisay aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijkan barnaamij lamida daawadayaal intaan iskugu iman doono kamarada iyo lightingkaasi waxay noo hagayay Fawzi Axmed Caynab habeynta barnaamijkana waxaa habeeyay oo isku soo dabariday Maxamed Ibrahim Dimbil anigoo Jamaal Axmed Naasirina waxaan idinku dhaafayaa is aragtimo qadambe koor assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh